وادي السلام walaalayaal soo dhawaada oo ku soo dhawaada telefishinka injiilka ee Soomaalida ama Somali Gospel TV oo aynu ka soo deeyno casharo aynu kaga hadlayno ereyga Ilaahay injiilka Towreedii sabuuradii sidaan idin sheegay dhamaantood waxay ku dhan yihiin kitaabka Bible-ka ee Masiixiyiinta waxaynu ka soo hadlaynay casharo ku saabsan salaada ama ducada ama tukashada kuwaas aynu soo sheegnay inay ereyadaasi yihiin ereyo haddaan masiixiin nahay isugu kaaya mid ah oo aan u isticmaalayno hal macne marka waxaynu ka soo hadalnay laba cashar oo ka horeeyay waynu ku soo qaadanay waa maxay salaadu taas oo aynu qeexidda ugu sahlan ee aynu salaada ama ducada siinay ay tahay la sheekaysiga ama la hadligda Ilaahay عشركي كوحي وحين كجسوا هذا اللي وما وجيدة الصلاة وجيدوين بدن أي دتكو صلاة كليهين إن إلهي أمانان إن إلهي عابدان إن إلهي كدو عيستان إنه إلهي حوجيو أو أي سمايان دونستيسا إن يدو عيان نفتو ده يدتك كلامه إنه إلهي يجسيو أود أي إسكجد دفاع عن دبن دابية بقى أما دوف سشلا شيطانك إيه وحي لمده maantana walaalayaal waxaynu soo qaadanaynaa ama ka hadlaynaa noocyada salaada ama ducada ama baryada Ilaahay la baryo ereyga Ilaahay Bible-ku wuxuu muujinayaa ama sheegayaa noocyo badan oo ducooyina oo ay masiixiintu ku ducaystaan kuwaasoo uu isticmaalayo ereyo kala duwan tusaalahaan injiilka waxaa ku qoran oo oranaya Ilaah u barya dadka oo u tukada oo u duceeya oo Ilaahay ugu mahadnaqa dadka kale oo dhan aawadood aayadan waxa ku jira afar arrimood ama afar nooc ay tahay inay ducadeenu ku saabsanaato ama ay ku salaysnaato kuwaas oo kala ah waa ta koowaad duco iimaaneed ama rumayso ereyga Ilaahay waxa ku qoran injiilka ducadii rumaysaldihi way bogsiin doontaa kii buka oo Rabbigu waa ka sara kicin doonaa oo Rabbigu waa sara kicin doonaa oo hadduu dambaabay waa loo dambi dhaafi doonaa halkan ducada ama salaada iimaanka ku salaysan ayaa waxa loogu tukaday qof jiran iyadoo uu Ilaahay la weydiisanayo inuu qofkaas bogsiiyo marka aynu walaalayaal ducaysanayno waa inaynu rumaynaa awoodda iyo wanaagga Ilaahay ereyga Ilaahay injiilka waxa ku qoran Ciise wuxuu yiri wax walba waa u suurtoobaan ka rumaysan ka Ilaahay rumaysan awoodiisa Ilaahay wuxuu awoodaa inuu wax uu ka duceeyay ee Ilaahay ka baryay waayo Ilaahay awood buu leeyahay Ilaahay waa wanaagsan yahay Ilaahay waa naxariis badan yahay in haddii rumaysa aynu ku ducaysano uu Ilaahay waxa inoo sameeyo haddii ay isaga doonistiisa tahay waxa kaloo jira walaalayaal oo taa soo raaca nooc kale oo ducaa oo ah duco ama salaad loo wada tukado si wada jira ereyga Ilaahay ee Bible-ku wuxuu nooga sheekeynayaa markii uu Ciise samada u baxay ee xertiisii uu ka tegay iyagoo aad u yar oo tamayr yar oo markaa sayidkoodii la dilay oo isku talaabta lagu dilay ayuu Ciise samada u baxay kitaabka falimaha rasuulada ahdiga cusub waxa ku qoran iyagoo isku wada qalbiga ayay ku sii adkaysteen tukasho way wada tukadeen muddo yar waqtigaas kadibna maalintii Pentecost ee uu ruuxa quduuska ay xawaariyiinta Ciise ku soo degay waxa injiilka ku qoran inay xertii ayaa waxa ku qoran injiilka inay ku sii adkaysteen tukasho oo iyagoo wada tukanaya oo wada jir u ducaysanaya ee uu ruuxii quduuska Ciise Masiix ugu ballan qaaday inuu iyaga xoogeynayo oo uu dhiiri gelinayo oo iyaga rumaysadkooda adkaynayo oo uu siinayo awood rabbaaniya oo ay rumaysadkooda ku sii adkaystaan dhibaato kasta oo haysatay iyo si kasta loo silcinayay oo iyagoo wada tukanaya oo isku qalbiya oo ku soo degay ruuxii quduuska ahaa oo sidaasan ay kaniisadda Ciise Masiix markay masiixiintii heleen awoodii ruuxa quduuska ahaa ay awoodeen inay masiixiinta inay sii faafiyaan rumaysadkooda oo ay dhiiranaan iyo adkaysi rumaysa ay sii yeesheen marka walaalayaal waxa jira duco aynu la ducaysanayno masiixiinta kale si wada jira
oo aynu kaniisaduhu waad aragteen kaniisaduhu siday u wada ducaystaan iyagoo wada jira oo isku qalbiya oo ah kuwo leh midnimo. marka taasina waa duco nooc ka mid a noocyada ducaysiga. nooc kale oo duco waxa weeye duco codsi ama tuugsi ama baryo ilaahay. waa inaynu codsigeenna ilaahay hordhignaa ayuu injiilku ina barayaa. waxaa ku qoran injiilka waxba a ka welwelina, laakiinse wax kastaba baryadiinna ilaah ku ogeysiiya. tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto. maaha oo keliya inaynu halkan ilaahay ka baryayno waxyaalaha aynu jidh ahaan u baahannahay sida cuntada, hoyga, ammaanada, caafimaadka iyo wixii lamid a, laakiinse inaynu ilaahay ka baryayno inuu inaga guuleeyo dagaalka ruuxiyanka ah ee uu shaydaanku inagula jiro mar kasta, si uu jidka ilaahay inooga duwo oo inooga duufsado. ciise masiix ducadii uu xertiisa baray waxaa ku jiray oo injiilka ku qoran, waxaad ku dacaysataan jirrabaadda ha noo kaxayn ilaahow, laakiinse sharka naga dub, waayo boqortooyada, xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa iyo weligaa. aamiin. markaa walaalayaal, waxa weeye nooc kale oo ducaa waxa weeye inaynu codsiyadeenna iyo baryooyinkoodna soo hordhigno, ilaahay soo hordhigno inagoo leh rumaysi, inagoo leh oo weliba ilaahay u mahadnaqayna. ma aha ilaahay inaynu u mahadnaqno oo keliya markuu ducadeena ka jawaabo, laakiin ereyga ilaahay waxaa ku qoran ilaahay ugu mahadnaqa inuu ducada aad ducaysatay uu aqbali doono. ugu mahadnaq ilaahay inuu ku dhegaystay. ilaahay intaa la-eg ayaa kuu soo fadhiistay oo mar kasta diyaar u ah inuu ducadaada iyo salaadaada iyo baryadaada uu dhegaysto. uma baahnid inaad arji u qoratid, uma baahnid inaad ballan la yeelatid, uma baahnid inaad si gaara isku soo habaysid oo aad isa soo maydhmaydhid ama aad dhar gaara soo xidhatid. waxa uu ilaahay kaaga baahanya oo keliya qalbi daahira oo rumaysi leh inaad la timaadid. nooc kale oo ducaa walaalayaal oo baybalku ka hadlo waxa weeye duco mahadnaqineed. ilaahay oo loo mahadnaqayo, sidaynu ka soo akhrinay kitaabka injiilka. hadda aayadihii waxba ha ka welwelina ayaa ku qoran, laakiinse wax kastaba baryadiinna ilaah ku ogeysiiya. kasho iyo duco mahadnaqid la jirto. tusaalayaal badan oo ilaahay duco loogu mahadnaqayo ayaa laga helayaa kitaabka quduuska, gaar ahaan kitaabka sabuuradii. kaba soo qaad haddaan idiin akhriyo sabuurka 138 oo nebi daawud ku ducaysanayo sida tan: qalbigayga oo dhan ayaan kugu mahadnaqi doonaa ilaahayow, ayuu nebi daawud leeyahay. ammaan ayaan kuugu gabi doonaa, waxaan u soo tukan doonaa macbudkaaga quduuska xaggiisa, oo magacaaga waxaan ugu mahadnaqi doonaa raxmadaada iyo runtaada aawadood, waayo ereygaaga waad sii adkaysay. maalintii aan kuu qayshaday waad ii soo jawaabtay, waanad igu kalsooni gelisay xooggii aad naftayda u yeeshay. rabbiyow, boqorrada dhulka jooga oo dhammo way kugu mahadnaqi doonaan, waayo waxay maqlaan ereyada afkaaga. way ka gabyi doonaan jidadka rabbiga, waayo ammaanta rabbigu waa weyn tahay. waayo inkastoo rabbigu sarreeyo, haddana wuu fiiriyaa kuwa hooseeya, laakiinse kan kibra meel fog buu ka yaqaan. inkastoo aan ku dhex socdo dhibaato, waad isoo noolayn doontaa, oo waxaad gacantaada ku soo fidin doontaa cadhada cadaawayaashayda, oo gacantaada midigna way i badbaadin doontaa. rabbigaa kaamil ka dhigi doona waxa igu saabsan. rabbiyow, naxariistaadu weligeedba way sii waartaa, ha ka tegin shuqullada gacmahaaga. marka walaalayaal, halkan waxaan ku arkaynaa sabuurkan iyo sabuuro badan oo kale. waxa nebi daawud wuxuu ilaahay buu u mahadnaqayaa wanaagiisa iyo siduu uga badbaadiyey cadawiyadiisa oo markaa dhibaato ku hayay, siduu boqortooyadiisa u dhisay, siduu u dhegaystay markuu u yimaado oo uu ilaahay hortiisa uu soo fadhiisto, sida uu ilaahay wanaagiisa u tuso ayuu ka ducaynayaa. marka walaalayaal, waxa weeye duco mahadnaqid aynu ilaahay u mahadnaqayno. waxyaalaha uu ilaahay noo sameeyey way badan yihiin, ma soo koobi karno. marka ilaahay mar kasta waa inaynu u haynaa mahad. nolosha aynu neefsanayno ayaa ilaahay ka timi, iska dhaaf wax kale. maanta haddii laynaga joojiyo neeftaa aynu dhimanaynaa.
marka waxa weeye duco mahadniqideed ayaa Bible-ku ku hadlaa. nooc kale oo duca ama salaad ama baryo waxa weeye duco caabudeed ama salaad caabudeed oo Ilaahay lagu caabudayo. ducada caabudaadu waxay la mid tahay salaada ama ducada mahadnaqa. waxay ku kala duwan yihiin in caabudaadu ay diiradda saarayso oo ku socoto ama ku saabsan tahay ka uu Ilaahay yahay, halka ay mahadniqidu ku saabsan tahay waxa uu Ilaahay qabtay. Ilaahay waxaynu ku caabudnaa ka uu yahay, weynaantiisa, sharaftiisa, awoodiisa, naxariistiisa, iyo wax kastoo Ilaahay yahay ayaynu ku caabudnaa. sidiisa ayuu Ilaahay wuxuu ugu qalmaa in la caabudo. marka waxa weeye oo la saraysiiyo oo loo tukado oo waayo Ilaahay ka uu yahay ayuu halka ducada mahadniqidu ay ku saabsan tahay inuu Ilaahay waxa uu qabtay aynu uga mahadnaqayno. wuxuuna siiyey badbaado. sayidka ciise masiix ayuu noo soo diray. wuxuu shaydaanka ayuu naga badbaadiyey oo wuxuuna tirey runtiisa nolol buu na siiyey, neef buu na siiyey, waxaanu cunno iyo ammaan iyo wax kasta oo kale. Ilaahay waxa uu noo qabtay ma soo koobi karno. masiixiyiintii aasaaskii kaniisadda, gaar ahaan kaniisaddii ugu horreysay ee magaaladii Antioch la odhan jiray ka aasaasantay, waxay jiilka ku qoran inay sidan u tukadeen iyaga oo sooman. oo markay rabbiga caabudayeen oo soomayeen ayaa ruuxa quduuskaahi wuxuu ku yidhi Barnabas iyo Saulos iigu sooca shughulkii aan ugu yeedhay. markay soomeen oo duceeyeen oo gacmahoodii saareen labadii qof ee Ilaahay doortay ee shaqada gaarka u doortay dabadeed ayay iyagii direen ayaa Bible-ka ku qoran. Barnabas iyo Saulos waxay ka mid ahaayeen masiixiyiintii ugu horreeyay xawaariyiinta ahayd, raggii aasaasay kaniisadda masiixa. Paul markii dambe Saulos magacii waa laga bedelay, Paulus buu la baxay oo wuxuu kaniisadda gaadhsiiyey meelo kala duwan oo xataa ilaa Roma oo Yurub ayuu gaadhsiiyey. marka waxa weeye Ilaahay markay tukanayeen, Ilaahay ruuxii quduuska xertii ayaa Ilaahay u sheegay inuu labada nin u doortay shaqo gaara. shaqadaas oo ah inay injiilka gaadhsiiyaan quruumaha kale. sidaa daraaddeed ayay waxay saareen u duceeyeen, gacmahay saareen, way u duceeyeen, waxay shaqadii Ilaahay ayay ugu duceeyeen doortay. marka taasina waxa weeye nooc ducada ka mida in Ilaahay uu dad gaara doorto. waxaa jira nooc kale oo ducaa oo ah duco quduusayn ama daahir ka dhigin ama doorasho gaara. mararka qaarkood ducada ama salaadu waa waqti aynu isku xidhayno ama isu faquuqayno ama u go'ayno inaynu Ilaahay raacno ama samayno doonista Ilaahay. ciise masiix ducadan oo kale ayuu ku ducaystay habeenka hor intii aan isaga isku talaabta lagu qodbin. waxaa injiilka ku qoran waxoogaa ayuu hore u socday oo wejigiisu u dhacay oo tukaday isagoo leh aabbow hadday suurtoodo koobkani hay dhaafo, hase ahaatee yaanay noqon sidaan doonaya laakiin ha noqoto sida aad adigu doonaysid. koobkan wuxuu kana naftu waa markii uu ciise sameynayey shaqadii ugu adkayd ee Ilaahay u doortay oo ah inuu dembiyada bini aadanka allabari ahaan ugu dhinto isku talaabta. ayuu saa ku ducaystay. marka waxaa jira marar aynu inaga lafteenu waqti gaara Ilaahay siinayno. dad baa taga meel lama degaana ama meel cidla oo Ilaahay u go'a waqti siiya, maalin, 2 maalmood, 7 bil, wixii ay intii ayagu rabaan si gaara. markasta inaynu waqti siino Ilaahay waa muhiim, laakiin haddana si gaara ayay Ilaahay isugu faquuqaan ama isugu gooniyeeyaan oo waxay yidhahdaan waqtigaa waxaan siinayaa salaad iyo soon. ciise masiix waxaa kaloo Bible-ka ku qoran inuu 40 maalmood markii uu shaqadiisa adduunka bilaabayay 40 maalmood lama degaanka u baxay oo aan waxba cunin waxna cabin oo uu soomanaa oo uu Ilaahay ka baryay inuu hawshan u doortay uu ku caawiyo. marka walaalayaal waxaa jira waqti duco Ilaahay aynu gooni isaga dhigayno ama isu daahirinayno.
nooc kale oo ducada ama salaada kamida waxa weeye duco shafeeco qaadid marar badan salaadiheenna ama ducooyinkaana waxaa ku jira codsiyo aynu dadka kale ugu shafeeco qaadayno oo ilaahay iyaga u baryayno waxaa injiilku ina barayaa oo ku qoran inaynu xataa inaynu shafeeco qaadno qof kasta. ciise masiix ayaa halkan tusaale fiican inoo noqonaya oo injiilka sida uu yooxana ku qoray cutubka 17 oo dhan markuu adduunka ka tegayay xertiisii ayuu u duceeyey dhammaan kuwa isaga rumaysan kuwii beriga adduunka joogay iyo xertiisa hadda nool sida annagoo kale. kadib markuu cutubkaas oo 26 aayadood ka kooban xertiisii ugu duceeyey waxyaalo kala duwan oo ay kamid ahaayeen ammaano, ilaalin, inuu ilaahay ka ilaaliyo adduunkan shaydaanka iyo silaca iyo duubsashada shaydaanka, rumaysadkooda uu koriyo oo uusan shaydaanku ka adkaan, inay barakoobaan, inay mid ahaadaan sida ay ciise masiix iyo ilaahay midnimada u leeyihiin oo ay isjeclaadaan. wuxuu ciise masiix ku soo gabagabeeyey aayadda 20aad oo odhanaysa ilaahay oo kuwan oo keliya kuu baryi maayo kuwii markaa joogay, waxaanse weliba kuu baryayaa kuwa igu rumaysan doona hadalkooda aawadeed. ciise masiix adiga ayuu kuu ducaynaya walaalayaal, aan maanta ereyga ilaahay kula qaybsanayo in ilaahay uu ku fahansiiyo xaqa. marka walaalayaal waxa weeye duco shafeeco qaadid inaynu dadka kale u shafeeco qaadno oo aynu u ducayno ayaa iyaduna nooc kale oo ducada masiixiyiinta ka tirsan. nooc kale oo duco ama salaad ama tukasho aynu ku ducaysano waxa weeye inaynu u ducayno dadka kale gaar ahaan cadaawayaasha. ereyga ilaahay injiilka ciise masiix wuxuu na baray oo ku qoran cadowyadiina jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya, si aad u ahaataan wiilashii aabbihiina jannada ku jira. waayo qoraxdiisa wuxuu u soo bixiyaa kuwa xun iyo kuwa wanaagsan, roobna wuxuu u diiyaa kuwa xaqa iyo kuwa aan xaq ahayn. waayo haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel abaalkee baad leedihiin? dembiilayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? haddaad salaantaan walaalihiin ama kuwa idinla diinta abu ka wadaa oo keliya, maxaad dheeraada ood samaysaan? dadka kale miyaanay sidaas oo kale samayn? sidaas aawadeed u samaada sida ilaahaynu u san yahay. ilaahay dadkoo dhan buu u fiican yahay. ilaahay dadkoo dhan buu u fiican yahay, ma kala saaro kana qabiila, kana cad, kana madow, kana masiixiya, kana muslina. waxa weeye dhammaan ilaahay wuu daryeelaa, ilaahay qorax buu siiyaa, ilaahay roob buu u diiyaa, ilaahay waxay cunaan iyo ammaan buu siiyaa. masiixiyiinta waxaa lagu amray inay sidaa ilaahay dadka uga simo wanaagiisa ay wanaagooda uga simaan dadka kale xataa kuwa iyaga necb. marka walaalayaal waxaynu duca waxa weeye inaynu dadka kale xataa kuwa ina necb u ducayno, ma aha inaynu waxaad arkaysaa soomaalida iyagoo la habaarayo dadkii kale la habaarayo, xataa iyagoo ku dhex nool ayay dadkii kale habaarayaan. ilaahu dhammee, ilaahu kuwan diintaasay haystaan rog, ilaahu kuwan waxaasay aaminsan yihiin waxee adiguna waad la rogmaysaa. waayo noloshiinni baa isku xidhan. waayo ilaahay xaasidnimada ma barakeeyo. haddaad wax wanaaga dhaanto wanaagga ugu dacee oo aad inay ilaahay gartaan. laakiin mar haddaad habaarayso waxay ka dhigan tahay inaad ilaaha runta aadan garanayn. xaasidnimada iyo nacaybka iyo habaarka wuxuu ka yimaadaa shaydaanku ka yimaadaa. laakiin ereyga ilaahay waxaa ku qoran halkan sida ilaahay u san yahay idinkuna u sanaada, wanaag u sameeya sida uu isagu wanaag ugu sameeyo oo kale dadka oo dhan. ereyga ilaahay la qaybsada kuwa idin necab oo u duceeya. sida aan anigu hadda kuwa badan oo caaya oo masiixa daraaddeed igu caayaya aan ereyga ilaahay haddana aan ula qaybsanayo, waa jacaylka ilaahay bay ka dhigan tahay inuu ilaahay iyaga badbaadiyo oo shaydaanka ka badbaadiyo. marka waxa weeye duco kale waxa weeye inaynu u ducayno cadaawayaasheena. soomaalida iska dhaaf qolo diin kala haysatee xataa qabiil bay isku habaarayaan. marka waxaana shaydaanka ka yimaada. ereyga ilaahay bibalku wuxuu ka hadlayaa inaynu ku ducaysano si qaabilsan ama ku salaysan ruuxa ilaahay.
oo ruuxa Ilaahay hogaaminayo hatta marka aynu ducadeyna erayo aynaan u hayn oo hadalku ina gabo ruuxa Ilaahay ayaa inoo duceeya oo inoo shafeeco qaada oo aynu ku ducaysanaa inagoo aamusan walaalayaal ducadu waa wada sheekaysi aynu Ilaahay la leenahay taas oo aynu markasta ay tahay inaynu ducaysano oo Ilaahay u tukano oo salaadno si aan kala go' lahayn haddaynu shaqaynayno haddaynu ku jirno meesh cibaadaysi haddaynu markasta maskaxda idaad Ilaahay ku haysid waa duco had iyo goorba farxa joogsi la'aan u tukada wax walbana ka mahadnaqa waayo taasi waxa idin tahay doonista Ilaahay xagga Ciise Masiix ayaa ereyga Ilaahay ku qoran Injiilka marba marka ka dambaysa ee uu jacaylka aynu Ciise Masiix u qabno sii koraba caada ay walaalayaal inoo noqonaysaa inaynu Ilaahay u hilowno inaynu had iyo goor Ilaahay la sheekaysano ama u salaadno ama u tukano waayo ducada ama salaadu waa la sheekaysiga Ilaahay ka waran Ilaahay oo aad la sheekaysanayso Ilaahay adduunka haysta sida walaalayaal waa inaad ducada u fahantaan waana inaad ku ducaysataan ereyadiina waxaad Ilaahay ka rabto u sheego ha akhrin wax aan lagu dirsan iyo Qurayshtaas ahaan jirtay iyo qoladaas isdagaalay iyo reer hebel ba halka lagu laayay iyo ma Ilaahay wuxuu ku leeyahay war adigu maxaad iga rabtaa ereyadiina ku ducaysta si rumaysile luqadaada Ilaahay ula tagu fahmaya aad maadsantiin walaalayaal maanta nala joogteen Ilaahayna ha idin barakeeyo injiilka sida uu Matayos u qoray cutubka 6 iska jira inaydaan xaqnimadiina dadka ku horsamayn inaydin arkaan haddii kale abaal kuma lihidin aabbihiina jannada ku jira haddaba markaad sadaqaad bixinayso buun ha ugu dhufan hortaada sida laba wajiilayaashu sinagogyada iyo jidadka ku sameeyaan si dadku u ammaanaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad sadaqad bixinayso bidixdaadu iyaanay ogaan waxa midigtaadu samaynayso si ay sadaqadaadu u qarsoonaato oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa ayaa ku abaalgudi doona oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida laba wajiilayaasha waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sinagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadka ugu muuqdaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoon gal oo goortaad albaabkaaga xidhid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa ayaa ku abaalgudi doona goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan Ilaah aaminin yeelaan waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale waayo aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tihiin intaanad weydin haddaba sida tan u tukada aabbahayaga jannada ku jirow magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo kibis maalin nagu filan maantana sii oo naga cafi qaamahayaga sidaanu u cafinay kuwa noo qaamaysan oo jirrabaadda ha noo kaxayn laakiin sharka naga du waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa aamiin waayo haddaad dadka u cafidaan xumaantooda aabbihiinna jannada ku jira ayaa idiin cafiyi doona laakiin haddaana dadka cafiyin aabbihiinnu xumaantiinna idiin cafiyi maayo kolkaad soontaan ha ahaanina sida laba wajiilayaashu u fool qulubsan yihiin waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin
runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fool dhaqo si aadan dadka uga muuqan inaad sooman tahay laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa wuu kuu abaalgudi doonaa maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo midhirhku ku baabi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oo ka xadaan laakiin maal jannada ku urursada meesha aboorka iyo midhirhku ayan ku baabi'in iyo meesha tuugagu ayan jebin oo ayan ka xadin waayo meesha maalkaagu ku jiro meeshaasaa qalbigaagu ku jiri doonaa ilayska jidhku waa isha haddaba haddii ishaadu hagaagsan tahay jidhkaaga oo dhammina waa iftiimi doonaa laakiin ishaadu hadday xun tahay jidhkaaga oo dhammi gudcur buu ahaan doonaa haddaba iftiinka kugu jiraa hadduu gudcur yahay gudcurkaasi sidee buu u weyn yahay ninna laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quudhsanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ha ugu welwelina naftiinna waxaad cuni doontaan iyo waxaad cabbi doontaan jidhkiinnana ha ugu welwelina waxaad u huwan doontaan naftu miyaanay ka roonayn cuntada jidhkuna miyaanu ka roonayn dharka shimbiraha cirka eega waayo waxba ma beertaan waxna ma gurtaan maqsinana waxba kuma urursadaan oo aabbihiinna jannada ku jira ayaa cunto siiya idinku miyaynaan ka roonayn midkiinne intuu welwelo dherarkiisa dhudhun ku dari kara maxaad dharka uga welweshaan fiiriya ubaxyada duurka siday u baxaan ma ay shaqeeyaan ma ayna miiqdaan weliba waxaan idinku leeyahay xataa sulaymaan wakhtigii ammaantiisa oo dhan dhar uma uu gashan jirin sida kuwan midkood laakiin haddii ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo berrito moofada lagu ridayo sidee ka badan ayuu idiin huwinayaa rumaysad yarayaalihow sidaa darteed ha ku welwelina idinkoo leh maxaannu cunaynaa ama maxaannu cabbaynaa ama maxaannu huwanaynaa waayo quruumuhu waxaasoo dhan ayay doondoonaan aabbihiinna jannada ku jiraa waa og yahay inaad waxaasoo dhan u baahan tihiin laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaasoo dhan waa laydinku dari doonaa sidaa darteed berrito ha ka welwelina waayo berrito iyadaa isu welwelaysa maalinta sharkeedu waa ku filan yahay